nabigu sanadkii sagaalaad iyo sideedaad iyo toddobaad saddexdaas sanaba waa horna wuu soo bilaabay suubano ilaa sanadku dhimanayna waa waday suubano fariimo diri jiray dacwo dhambaallo maadaama gacantiisa military meelo badan nabigu ay gaari weyday kufaaru qurayshna uu jebiyey jasiiratul carab wixii uu awood badan dhulka uu dhigay waagi dambe wuxuu bilaabay meelaha fog dowladaha ka jira inuu fariimo u diro saxaabo u diray intuu fardo saaray qoraallo nabi maxamed ka socda ku socda reehebel dowlad heblaayo boqor hebel buu nabigu diri jiray wakii waagi dambe fariin u diray iyo saxaabi iyo qoraal israaciil kisra nimankii reer faris dhulkan iiraaniyiintu hadda degan yihiin deganaan jiray ciraaqna badankeed haystay eed garanaysaa imtixaanka dowladdu marka u xog badneed bay ahaayeen adduunka maraykan oo kale adduunka ka ahaayeen reer rum ayaa ka awood badnaa niman kibray ahaayeen oo aad u kibray boqorkii kisra markii loo geeyey waraaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam waraaqdu waa kii jexjeexee kibrey ee sanka taageed garanaysaan siirada taariikhdu garanaysaan iyo xadiidaba kadib wuxuu yidhi ninkii asaga wakiilka ogaha dhulka carbeed oo reer faris isaguna ah yuu fariin u soo diray wuxuu yidhi addoonka waraaqda ii soo qoray isagoo jeebaysan ii kembo addoonka ii ku jeedaa nabiga calayhi salaatu rag isma yaqaaneen moogta rag iskama warqabo wuxuu yidhi addoonka waraaqda ii soo qoray isagoo jeebaysan ii keen muxuu qoonsaday wuxuu yidhi kow waraaqda uu soo qoray magaciisuu ku bilaabay asagoon magaciigii sheegin waxay inuu yidhaahdo ilaa kisra cadiimi faris wuxuu ka bilaabay min maxamed ibni cabdillaah rasuulillaah ilaa kisra cadiimi faris buu ka bilaabay ninka magaciisa isku bilaabay wiil isku yilayaallaba ma ahee asagoo seetaysan ii keen baro jeebaysan wajtaraa calay wuuna igu dhiirraday yidhi wuba igu dhiirradayba wadacaani ilaa hayri diini diintaydii diimaan ka ahayna wuu igu yeedhay muxuu diinu haystaa dabku shidaa waa dab caabud inuu xoroobo oo ilaahay ku xidhmaa laga kari la'yahay ninkii baa soo dhaqaaqay ninkaa fayruus baa la odhan jiray fayruus ciidan buu soo kaxaystay suu soo xeday madiinu yimid nabigu ugu yimid wuxuu yidhi inna rabbii amaranii an axmilaka ilay waa ninkii birsanba wuxuu yidhi haddaan fayruus ahay rabbigay boqorkiisa buu jeedaa kisra wuxuu i soo amray inaan kuu geeyo oon ku qaado oon kuu geeyo nabigu intuu qoslay buu inna rabbii akhbaranii annahu qad qatala rabbaka albaarixa goor isma kooban buu weyaba lamaba dagaalamin maxaa la yidhi haa musaas ahaa aniga rabbigay xalay wuxuu ii sheegay rabbigaadi inuu dilay ninkii ku soo diray ma noolo kisra oo ciraaq darafkeeda ka talinayoo degan ayaa ilaahay xalay qoorta ku dhuftay wuxuuna ku salliday nin asaga saaxiibka shiirawahi la odhan jiray oo naa'ibkiisa ah baa dilay kursidii waa la isku laayaa warka isla markiiba nabiga jibriil baa u keenay waxaa kugu socda fayruus oo xaragoonaya oo raba inuu qaado kuu geeyo boqorkii reer faris niman wax ka warqaamay waxaad u sheegtay markuu kuu yimaado xalayba ninka inaan laga farxasho ina rabbii akhbaranii annahu qad qatala rabbaka albaarixa wuu isku naxay ninkii madaaniyabada ciidanka watay ee soo qaad nabiga la yidhi faamsik calaya raytha maa yaatiika alkhabar wuxuu yidhi waxba ha degdegin iska fadhi intuu warku kuu imanayo nabigaa la talinaya waxba ha ordin warkayga ha beenin aduu hadda ha isii dayno na ha dhihino faris ha aadin sug warkuu kuu iman doonaayo fain tabayan laka sidqii wailaa faanta calaa amrika buuri inaan run sheegaya haddaad ogaato kuu caddaato haddii diinka islaamka soo iska daa dabkaad shadaysee kisrana ha ku noqon iyo shirawey iyo meesha isku haystaan aniga i soo raac haddaan been sheegay ood aragto warkaygu inu waxba ka jirin hadda waad fasaxan tahay ama kaxayso intaad jeebayso ii gee waa iska dhib yar tahayba maxaa ka fiican maxaad rabtay inaan ku jeebayo kuu geeyo boqorkaygii boqorkaygi waaba la dila maba noolee meel cidlaha ay geynini warka iska sug nabigu u tartiibinaya saxaabadu inay marka qoorta ku dhuftaa waxba kuma ah laakiin nabigu ma rabo inuu ninka didiyo faraaca dalika fayrus wahaalahu bay dheheen ruwaadii arrinkaas argagax buu ku noqday wuu qaadan waayey lama filaan darbada aan filayn hadday kugu dhacdo moogta waad u dhimani hawshii loo soo diray inuu fuliyana wuu ka gaabsaday warkii inuu rumayna waa ku dhici waayey oo marka intuu rumeey uu ku laabta halkaas iyo reer faris
nabiga hadalkiisa inuu fuudeystana uu la qiwaayay wuu sugay maalmo markii la joogay warkii baa yimid sirdoonka warka keenay reer farisku waa isdagay dhulku waa joogeen waxaa la yidhi shiira weyhi baa xalay ku booday boqorkii kisra ah wuuna dilay intaa markii nabiga loo sheegay faris wada jooga maalmo kadib loo sheegay nabiga dawsiyoga wuuna u sheegay saaxiibkii yaa wuxuu yidhi yay khaliif ka dhigteen kisra haddii la dilay yay ku bedeleen yay magacaabeen waxaa la wax ragga kamuusan teginoo gabadh buu ka tegay kisra gabadhii baa loo magacaabay boqorad laga dhigay nabi wuxuu yidhi waa u dhammaatay وحديث أبو بكر ماشي مالك النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وفي رواية تملكهم امرأة ويقول من ليبانان قيس أي دمر أطلية دولة سياسة أي دمر كطلية وركب مركو سيد النقضيب وننك وإسلام فيروز وإسلامي عيدا كل سعنا وإسلامين كدبنا وون نقضي ري فارس إن بدن وكملوا الدين كإسلام كسوق لنك فيروز أحد ببركة الإخبار بالغيب خبر كاز غيبي قال النبي الشيء إلهي الشيء معجزة وحبضا باكو إسلامي سيدا بين النقدين ريفاز نقطة إلا بحين وكان نبي حبايا مزق كتابي مزق الله ملكه وكان نبي يقول مرة وراغي بو تحتها بقرطويد إلهي باتشي أيضا بدبرين دونا ريكس تاوي تبنان واي كي مالين بقر وكوكا لا الدلة انت دمر مسلمين تاسرائيل لقدم بوي استاغو ويدا يو غالا مالك هو رئيس ريفرسن مدح الله سو بخان وا marka islaameen markii loo geeyay boqorkii reer rum loo geeyay waraaqda nabi maxamed qoraalkii diinka ugu yeedhay uu soo dhaweeyay uu isku laalaabay cadar buu ku buufiyay uu dhunkaday wajigu saartay sanduuq iyo abaxad gooni ku rirtay way kala dhaxli jireen sanduuqii asaga iyo waraaqda nabi maxamed boqor kastoo reer Roma haysan jiray waa dhow bay soo gaadhay dhowr boqol oo sano kadib baa la waayay nabi markii loo sheegay waraaqda inuu xurmeeyo wuxuu yiri in nabar ah dawlad bay sii ahaan doonaan in nabar ah dawlad riwaayo waxay leedahay reer Rom inta bini aadamku uu jiro baqiya u jiri doonta adduunka hadda ayaa ka taliya nimanka reer Rom waa faranjigaas isma taqaanaan yaa ina haysto idin taliya iyankooda ma xakuskuusan reer Rum bay haysta xurmaynta nabiga ay xurmeeyeen kitaabkiisa ay qadariyeen adduunka xuquuqsan dareeraa iyo dhaqan bay ku heleen nabigaana sheegay intay bini aadan jiraan mutakun lahum baaqiya muslimiintu dhul badan bay ka qaateen dhulkooda waa xoreeyeen way islaameen badankood qaybna way carreen oo kuwa badaha dalaabay ee Yurub galay Yurubna dawladda ka dhisteen say wada waagi dambe waxay nagu biyo keeneen ay Andalus naga qaateen haddana ay idinku haystaan goofafkiinni bay idinku haystaan aad ku dhalateen wax kale iska daay marka idinku aad ka tagteen diinkiinni leora diin baad kaga adkaydeen laakiin diinka aad ka tagtaan hawsha milatariyada idinka awood badan idinka taatika badan idinka xoolo badan waa idin dhamaatay mucjizaadka nabiga waxa kamid ah calayhi salaatu wassalaam warrimada ay u warrantay neefka loo sameeyay nabiga in lagu dilo la rabay abuurada ka sheekeeyay khaybar markii nabigu uu furto yuhuud uu magaalada u weyn u qabsaday ayay haweeney yahuudiyad ah oo dhib badan oo reer bani quraydo ah in reer bani waxay tam xusuustay oo yahuudiyadu cadaab nabiga u qabtaa waxay neef ari ah bay soo gadoo buuran dadkii bay waraysato waxay tiri nabigu neefka ariga xubnihiisa xubankeebu u jecel yahay waxaa lagu nabigu garabku jecel yahay garabkii bay sunta si gooni uga buuxisay neefkoo dhan bay samaysay hilibkiisii laakiin suntii waxay aad uga buuxisay la fiirsatay la beegsatay cadkii nabigu uu jeclaay garabka ah waxayna tiri waa in marti soo raayay yimaada nabigu yuhuud gaal iyo islaam qofkii marti qaada hadduu dareen kale ka qabin waa u tagi jiray saxaabo dhowra iyo asaga neefka ariga loogu yeedhay way dul fadhiisteen way cuneen cadkii u horreeyay nabigu markuu qaaday oo garabka u goostay iyo nabigu dhaqaajin waay cadkii waa u sheegay inuu sumaysan yahay hadda waxaan soo maray mar dhaweyn xad u sheegay inaan xalaal lagu soo qaadin bidooni idin lagu soo qaaday kanna wuxuu u sheegay inuu sumaysan nabi allah la qamar waan sumaysnaa sunba waliba laga bixin mingar laga dhig
saxaabiga bishir macruud garanaysan oo nabiga la cunay raashinka markii uu naf baxay oo hilibka caaliga asagoo cunayay ee suntu ay ku yarayd markii uu soo korooday nafba dhul lama dhicin saxaabigaas nabigu laakiin cadkii looga buuxiyay buu afka galiyo roogay laakiin wuu laqi waayay kadibna cadkii waa u sheegay hawsha markay dhacday yuhuud isku weer nabigu yuhuud oo dhan isku weer wixii yuhuud meelahan jooga la igu yeeray waa loo yeeray ijma'u ilayya man kana haahuna min al-yahud yuhuudi baa la soo ururiyay ciidanka muslimiinta soo ururiyay nabiga loo keenay nabigu wuxuu yiri yuhuuday su'aal uu xirma qaboojinaya qofka markaad u yeedho muraadkaad ka leedahay marka u horeysa lama bilaabo haddaadan degdeg qabin oo waqtigu kugu yaray dib baa loo dhigtaa xogow waa la sabarbaxaa arar iyo waxba la samaystaa waxay dhan Soomaaliya aqalkaada hortiina oo afeed baa la dhigtaa ereyga hortiina arar baa la yeeshaa ama afeed baa la yeeshaa nabi wuxuu waxaan idin weydiinayaa shay baan idin weydiinay run iiga sheega been ha ii sheegina qoom lagu aafiyay beenta tiini waxay dhan wallahi nabiyow run baan maanta kuu sheegayna wuxuu man abuukum yaa idin dhalo horta yaa tii yuhuudi xageed ka soo farcateen awgiin ii sheega isirkiini baa la fahmi waaye isirkiina sheega waxay dhan fulaan min fulaan baan dhalo halkaas baarqabkaasaan ka farcano na dhalay nabi wuxuu kadabtum been baad sheegteen bal abuukum fulaan way ku bilaabatay durbaxabadii waa ku bilaabatay yuhuud fadhiga bay qaban laayeen nabi wuxuu abtirkiini baad been ka sheegteen odayga idima dhalin oday hebel baa idin dhalay qaaluu sadaqta xidhan waa runta sidaa wey ogow haddii way ku lugoyn nin aabihii kugu lugoynaya abtirkiisii goorma run kuu sheegi shayga in bani aadamku been ka sheego waa maxay waa abtirkooda in culays kala jiraba mooye in kama dhal lagugu haysta mooye aabbaha baad been ka sheegi maysid waad fahanteen mar waxaan u jeedo tayib aabbahooda iyo ugu dhalay been ka sheegaya nabiga raba in la gooyaan waa qoom la gooyo awey nabiga raba ma cidla inay u diraan laakiin nabiga may u diri karaan waxay dhanaba la run baad sheegtay wuxuu yiri haddana waxba mid labaad baa idin weydiin hal antum saadiqi an shay in sa'altu anhu run ma ii sheegaysan haddaan shay kale idin weydiin qaaluu nacam ya abul qaasim bayna hawaan kuu sheegayna abul qaasim run baan kuu sheegayna wa in kadabna alayka arafta kadibana kama araftahu fi abina bayna haddaan been kuu sheegno shayga Allah baan ka been sheegno beentana waad garabaysaad u garatay beenta aan ka sheegnay odayga aan ka soo farcanayba nabi wuxuu yiri waayaay man hum ahlun naar qodiha ahlun naar ka naarta lagu kuusi doono ummadaha ahlun naarkooda waa kuma waxay dhaheen nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha naarta anaga u horeyn doono dhaheen laakiin wax yar baan ku jiraynaa kadib idinka noo daamari doona يهود شغو يهود حال كذا الله باقرن عليها أبورين بايقان وماشي يكون شيئا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قرآن كي يكون شيئا قرآن كلا يكون شيئا قل يا أهل تفسيركم وتدوب برية ما هو لباتني ما هو أفرتن وعلى سوق خلافه ترى هذا محفوظة عن الرسولنا وأفرتن أفرتن مع الموضوع مع النار تكجري نبي يهود أدنشرن بينتاس إلى أن يكون بيني ادقرنا إنسان في سورة البقرة غير كذبة طيب وحيدا إن يربان كجرين مدة كونا أفرتن بريئة بان كجر أياما معدودة كدبنا وانكسب بودنا ونلقصوا الجنابة نلقين بوس كان يحلقوا يوقي دونان مسلمين تي انت كن رعدي كن رميسين محمدو وركاس اللي سو يستاقين نوحوا اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا إله بان كدارتي ميل يهودي انتي اللي قليل لقصوا بحشي إنا نقف مسلمين اللي قليل نارنا أن يدين دمرين إذن كنا نار هداد قشان ولين كصبح ميسا حيدا ورنتا وامسي شبه إلى هذا وأقيه نين أقيه النار قلي حقا نقصي دقاء هذا كورم نين أقيه هذا إنه النار قلي عداود يحسد أي النبي النعبيه مقعانا عرب أدي يديهم بسيطة وصمينية ما بين مدو ولي قد بين يكون سعوته فرعي تعفير بن إسرائيل بيرهبيه مركو إلهي آخر زمان كل يحيو عرب كسو صار كون ختمي بيكحوا مع هذا حسد كي بقيلو iyo kursi jacaylku wax ka daran ma jiro tii nabiga markii uu rabay u dambeysay buu u yimid oo ahayd neefka hadda aan cunay ma noo samaysay
طيب لابد هو معجزة آيين معجزة صدحات بالنبي رانو خاتمه مثل صدحات بندي ويندين الرون ما كشيء يسن هذا يدين هل جعلتم في هذه الشاة سما ناف كان أرجع هذا عنيني 100 سميسين قالوا نعم بيده واسميني هوني أنا كدم بيني قرب كان أجعش أنا أقول شيء نبي وحول محايد هو كلفين هذا سميسان اسكت هنا الدشاء وحيد وحان طبعا هذا بينارات هاي أو اسبان فريم يسود من ما شيئا يسود بقرة هاي صوب حي إن أن كان راح يسون أن كان نصنا نبي كذا هذا النبي تهينا أحبك يجيل الميس ودي من ميسي والله يعصمك من الناس إلهي باكيله ومر دبنا وحنا ميسين لكن صحابي باكل انتي صحابنا داو علوس باك سو غاري والمعجزات النبي عليه الصلاه والسلام معجزات النبي واوين وحا كميده حديث انس وكشيكيه قيمها بدنا وحول عبد الله بن سلام مركو واسلام كيسبو كشيكينيا مركو النبي مدينه سو غلو مدينه يمد عبد الله بن سلام با النبي u tagay روايات waxay sheegayaan nabigu Makka joogaba intuu u tagay oo islaamay inuu nabi Allah islaamkayga qari Madiina hadan ku laabtay way dilayaan intaad ka daahiraysid awood ka yeelanayso ee astu laakiin se sawaabka Madiina ku islaam markuu nabigu soo galay buu u tagay asagoo rabnin caaliman uu ahaa yahuudna ninka oo aqoon badan xilliga asaga ahaa طيب ama culimada weyn baa lagu tirin jiray Zayd ibn Sa'na iyo asaga la tartansiin jiray wayna soo maray wuxuu nabigu u yimid oo salaamay oo uu arkay wajigiisii buu horta waxaan gartay inuusan waji been la ahayn been la wajigi nabigu kuma yaalo intaas ay ugu filay haddana waxaan rabay inaan hubsadon sii dhoojiyo xogta sii dhoojisto waxaan nabi allow saddex su'aalood baan ku weydiinaya saddex su'aalood baan ku weydiin oo san garanaynin qof aan nabi ka ahay saddexdaas su'aalood qof aan nabi ma garanayn waxaan yidhi buu midda koobaad awwal ashad saa'a isha علامتها واوين قيامة مد أصه الرئيس إيشي وما أول طعام يأكله أهل الجنة دتك أهل الجنة مركز الجنة اللي جاي قالنا راشينك أهل الرئيس اللصين اللي قمر تزورنا إيشي هو شرم بواه أوليوي علامة يا أستانتو أستمها واوين سرقدون مد أصه الرئيس إيشي مسلمين مركز الجنة قالان راشينك أهل الرئيس اللصين إيشي وحور ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه وحكوا إيش يكتاه وحا إلمه أبيه أو هذا إلمها دمر كودلان أبد أبهود محي أو هذا صدح سؤال النبي باك جواب كروادات كجوابته ورك جواد ديار أديك لنا نوك لود نبي عبار بو أم نسيور كذبنا وحب الله من نبي سؤاله كجواب وحكوي عبد الله أخبرني بهن آنفا جبريل هذا من تدي لفدي دمردو جبريل بأي شيء أنت آمسنانا علمك اللي شيء يندوح هاي يقدر يجلس يقدر ترسو أنت مركب يقول عبد الله بن سلام حوري ذاك عدو اليهود من الملائكة نبي صلى الله عليه وسلم هذا وحاي شيء سؤالها جوابه وحاي جبريل حوري جبريل نبي الله محاضر شيكتي معايا إلي ملائكة نينك يهود أقول نعبته ملائكة أحد كيهود أقول نعبته وجبريل محو جبريل أقول نعبيه حمان توضو صوصارا مركا لغا شاقينا وكشاقي عيدا كان سيئا باندولك ودقال قيل ملائكة ساسي يقول نعبيه لما حلين قلي معايدا صومالي ينين قلن بعك يكور قبان حولي وحا كبحي جواب هذا نبي حولي أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ضبا بري كسو بخي دونو ددك قلبيد وكحين دونا ضب كاسو ugu soo horeeya calaamadaha waaweyn iyo astamaha waaweyn lagu garto in adduunka la rogahay mid labaad wa amma awwalu ta'ami yaakulu ahlu jannah fa ziyadatu kabad al-hut raashinka horeeya muslimiintu markay jannada galaan la siin doona waxa weeye kalluun weyn baa loo qalay kalluunka beerkiisa ayaa qayb زيادة اللي يا ودير تاجن بال يا مسلمين تودن دقيسو لقى سينا يا دول إيو أمان لقى سينا هي وجوابتي صدحات إلا بعد يعني كلون بيركي أرتم بير بوليه مليه أو نمكي مجرتين ربرجا أو شيء يوقف عنا برملي كم ملا أنت كفتم وين
وأما الشبه صومالي بدن ببالك عنته لكن أنا ضارات كيان كل ريحنا طيب إنه قال لا يولي كلون ما عنت كلون ولي ما عنت له ملاي ولي ما عنت ملاي ما عنت يا نير مجرتنا ما كان يقصده هل كان معقول صورنا يا كلون هنا عنا سكبة داي نمان كاي المديرت ما كان أركب يا من كلون حسوستا برو كدي نوعي قبته الله باي قبته أنت وين المديرس عايز وركو حفال لي سفرها كقاضي المهم نبي وسيدي وأقول شيء مع صهري علمه سائب حجيب أبيه أجاك هذا وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها هؤلاء العلوسوية أيضا حول النبي عليه الصلاة والسلام علمه حلق أبورا بيها أبيه يهويدي فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب سلفكم وحيكون فسرين صلبكم ودبر كالرقة ترائبتم وكالحمها دمرك سيد القرآن كشيء بين هذا النقطة دمرك دلي واي حتى وحن لقوا واي رمي قعمد انتو القضية حتى لنقاجين واي هذا علم حديدكم يهرمركم حمريا إن كالحماها انت دعان لقى حقوق بيها نينك لقوا قصة سيدا علم اللي قرر هذا إلى أن يخرج من بين الصلب والترائب نبي عليه الصلاة والسلام ما دام الله بضع لقى أبو حق إكاشها وحاول يهدي نينك بيس هرمران وبيها قبضة كهرمران علمه أبيه بوئك هذا هدي هوين بيس صهر مران وأضيق بيس الداهان وحاول علمه هو يدي براعة حق إكاشة ريبتيجي بوئك هذا مرة ريادو وإكاشة شبهه صدح نقول لهم أشهد أنك رسول الله صحابي عبد الله بن سلامة نين خير دونا وإلهي خيرك وافجي وضاعضوها صدح لي ممكن النبي كجوابي سي قبل وقد جوابي أيوح حنقر يا رسول الله إناتا كدم حول النبي الله يهود وقوم بين بدن وطلك أنا كأقان المقادير أيضا إسكاكا تقانا ليلة هذا أيضا إسكاكا يقان وحول وقوم بهت وأن من ضدك كبين أبورته وإن يروح النظام ويهفريان يسهل انتهى إن علموا بإسلامي هذا إسلام كي أقادات أنت مرك إسلام كي أيسن أقانم يهود يرو أنيقا وحان أكتوضا كأي ويديبور نبقى يهود يرو قريق بيسوق قال عبد الله هنا ضعبوا كلهم نبي وحوري بل كور رمى عبد الله بن السلام كور رمى وحيدا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا بين هذا عبد الله بن السلام ها وأنك نوقع أقوم بدن شيخ أقوم بدنا ويلكي سوي وأنك نوقع خير بنك نوقع خير بدنا بنا دليل هذا نبي وحوري كور رمى هذا إسلام عبد الله وحيدا أعاده الله من ذلك إلهي كم قال عبد الله بن الإسلام نيك نوغو خير بدناوي نيك نوغو اقوم بدناوي نيك نوغو نوغو خير بدنا بانا دلي ما دحي كرتay dhawin balaayada ku dhaco islaam uu qaato ilaaha kan jeeyay deena afadaas abdullah ba ka soo baxay xaski uu ku dhuumanayay markaas wuxuu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah faqalu sharruna wa ibn sharrina يهود وقعوا فيه يهود واتقانا نمك هذا فدي لها وأعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا لها وعيده شرنا وابن شرنا يهود هذا إنك نقول خير درام وي أضيق نقول خير درام عن دليبة وبين نجاس بين صحابي كفوا فيه الكاس ووقعوا فيه وحبيك الشيء صحابي قبل الدورين نبي الله معكم وش يجيب تلقي زوارك ما أقان تلقي أنا كأقان سيدا ورقم كود حديث قرنا في الصحيحين إذا وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام قصة النبي قال له ويدو الصحابة والنبي قال له أرنك هذا النبي نمتك باللوغيس النوغشي كيف قال لي نبي قال مركو حولي كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا نبي قال كشي حولي وحاي سوكوريسي وإنو جيسي هويني ريب بني سعادة وريب بني بكر وحليم السعدي نبي وجهده maalin maalmaha kamida yaa aniga iyo wiilay dhashay baa israacnay buur waxaan raacnay ari
أدينا لو دون راعي جريبان راعي وأفرج النبي ويلكن والله جاي صاي ما ننقاضنين عروت مكيرين لو مسجد نينك وين يا صايلان لا ديرا وقيل يا أرجع نينك وين برعازون وعصاي قاضن مركو بدن براشد بيا دانسدا لكن عروت يركا حو تبينا إلى الصيام بينا والله عنا برح ويل بالله شبا وحير هدو ويقنقنينا إن مركب برقن كل جام الظهر لقانا والله سيا حو نبي أي ويلكي ما نقان واحد صهايا markii duhurkii la gaaray barqinku la gaaray waxaan ku wuri yaa akhi idhab faatina bizaadin min inda ummina orado hooye wax saaya noo keen wax xunta oo harim aan ku harimaysano Soomaalida hore remiga qadamaysan aqooni wixii duhurka la cuno harima la oran jiray harima ila waa hadka wax la cuno saasa la oran jiray walaalkay baa nabigu tagay buu ku soo noqday guriga soo aaday soo sahay noogu soo qaado intuu iga maqnaa يا جيد كان هوسفدي وحكوسو دغاي لبا شمبيرو واوين لبا غرغر اد مودو او عطعط كانه ما نسران ابيضان markay geedka dushii soo fuleen labadii gorgorku waa la yaqaan Soomaa ayaa waxay isweydiimid ba wuxuu yiri ma asagiba waxa geedka hoos fadhiya ma asagiba huwa ki kale waa asaga qudhigiisa way soo sheegeen waa laba malag Jibriil iyo Mikaa'il ay ahayn baa loo badan yahay riwaayadka qaar kood ay tilmaameen على كلام فيهما حلو النبي فأقبل يتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين وفي رواية علقة سوداء فطرحاها لودي ملك ويسود دقين dhulkay dhigeen jeega ii seexiyeen barta bogga bayaga jeexan nabi kaleey salaatu wasalaam si tartiib oo latifan oo xanuun lahayn baa nabiga dhulka loo dhigay jeexidaankaas iyo dhaawaca gaarayeen xataa nabigu ma dareemay kaleey salaatu wasalaam riwaaya waxay وكان الذي تولى ذلك جبريل فقال هذا حظ الشيطان منك هوشا احدك قبتي ابريشن كفوليي nabiga jaraxada camaliyada ku sameeyay wuxuu ahaa Jibriil yaa meesha dhakhtarka ah oo nabiga macalinkiisa markuu qalbi wadnihi buu dilaaciyay wadnihi buu soo bixiyay halkan uu dhigtay wadnihi buu sii jeexay wadnihi dhaxdiisa wuxuu ka soo bixiyay cad madow ama laba cadow madmadow markaas labada cad ma aragtaa waa shaytaanku wuxuu aadamuhu ku leeyahay waa meeshuu shaytaanku aadamaha ka xukumo waa meeshuu balaayada ku shubto shirkiga gaalnimada iyo waswaaska iyo nifaaqa iyo xumaanta iyo xiqdi iyo xasadka iyo macsiya jacaylka meeshay ka timaado way markaas uu tuuray fataraxaha uu tuuray cadki markuu cadka tuuray wadnihii meeshan keligii ah meesha yaalo jeexan oo la saafay baa meesha yaal wadnaha qudhigiisa waa in la nadiifiyo cadka qanjirka xun ee nabiga laga gooyay meesha laga soo gooyay waa in la nadiifiyo marka la hagaajiyo baahan tahay فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي وفي رواية فغسله جبريل في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه بيقبو وبرف على قدق ودنه يمشي شيحنيد لا برشيمه لغا سغوي عدك شيطانك لغا غوي كدب هدنا بيا يحنيه اما قرورحه ايا هدنا لو دقو كله اما بيا زمزم با لو دقاي markii la nadiifiyay ayuu tolay Jibriil meesha tolay inta annabi hawsha lagu sameeynayo farma dhaqaajinayo maxay qofka marka la abreeshimayo waa inuu san dhaqdhaqaaqin xaraka haduu yeesho khatar weey adawaarak dhaqaatidu markay idan qaleen maxay sameeyaan way idin suuxinayaan saad miiska kale u noqotaan miiska kale noqonaysaan waa la idinka shaqeysan hadhow baabaal markay idinka baxa kawaabisan baad soo kacaysan maxaa la sameeyay adoo faasha ku saaranta kala goon baad sarkaysa marka malaa'ik faashado ma baanaayadu suuxidoodana waa maxay waa suuxid qofku wax walba uu arkay xaqan uu saxnuun dareemay nabigu wuxuu dhan uu arkaa farna ma dhaqaajin karo xanuunna ma dareemay waxa cajiib oo la yaab leh qofka wadnihiisa hadii la bixiyo oo banaanka la dhigto xaqan wadnihiisa laga sii shaqeysto la jeexanayo qofku waa naf baxa binaadamku wadnihi hadii laga gooyo banaanka la dhigo inta la buu noolan kara xisaabo kan lagu rakibo oo qaab kale wax loo farsameeyo mooyeen waa daqiiqado inta jirka intiisa naftu ka soo dhamaanayso noolan kara dimaago nool bay naftu tagi kartaa موت الدماغ موت القلب ويكلا دنبين حق دقاتيد واوقتين بين لتاي المهم ومعجزه ربانيه واوت ربي ايضا لفتر كذا ايات
markii la nadiifiyey ayaa wadnihii bannaanka yaalay meeshiisa lagu soo celiyey markuu bannaanka la geeyey ثم أعاده في مكانه النبي قال ماشي بيكوزو عليه برتي با لوغو تولي توليتان كالكا كبلود الى حدونت النبي يغاري جيحتان ماشاس لاب حنشده laga bilaabo ila xuduntu gaari jiray labadii malag baa isla hadlay malag baa wuxuu yiri itini bisakina waxaadii keentaa weel xasilooni ah bini'aadamku inuu fudud yahay oo degdego oo xumaanta ku degdego oo wanaaga ka degdego oo khariban yahay khuliqa al-insaanu من عجل نبي بالله ديارن هياي وإن دجناش لجو أبوره أو لجو شو ائتني بالسكينة إيكن حسلوني يدجناش إيكن وحكمة الدين لجوده فذره في قلبي والبالله كان السكينة قلبي النبي كشوي جبريل ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه مركي ويلك السكينة لجو شو إيمانك لجو شو طمأنينة غيرك يقول هذا بطل أبريش قارد ماضي طل مدبي طلي بوري سيدنا أنس يومنا عايش سعد حكي كنجرين نبي مركو كل هذا وإسكا قاضي جو أكره إسكا قاضي وحلا أركي جرى طلمي وكوي الله طلمي مالين كالله طلي أميق ديرة هل كالله بحنشدا إلى حضنتا ديلين مدوبة أنجر طلع أركو بنادركم مرة النبي كلي بالها محايا لا سي كلي باسد الله يلي إذنكم وإذنكم جرتا شيطان كعدكس وإذن راح فرديا وفي رواية خطه فخاطه رواية وحياة طول كاسو مركاسو طولي وانت اللي دينين تيم بريه نبنمت كان مالك النبي لو دفتي خاتم النبوة قرب كبد حسلك النبي كجيا اللي مالك كهر نبي قم هاي مركي انتي لقى صار الشيطان كعدكيسي قلبي إلا النبي فيه حكمتي إيمان لقى بحيه الله طلول دمي أيام مورن لو دفتي تيم بر لو دفتي استام كان ماشي قرب كبد حسلك يساء يوكي يا لولي بقيت سوكرا استام كاسغا ميشو لو دفتو waxay culimadu leeyihiin hawsha baaray waxay leeyihiin waa meesha shaytaanku aadamaha uu ka galo markuu galayo shaytaanku markuu ruuxa binaadamka galaya ama ilha ku yimaado ama sixir ku yimaado ama mas shaytaan caadi ha noqdo ama kii waswaaska ay dadka diinta ka finay ha noqdee bartu aadamaha ka galo waxa waa garabka bidixsalkiisa waa meesha tiin baraha lagu dhuftay la xiray ee nabiga li shaytaanka ama soo gali karo halkaas nabiga laga xiray tiin baraha kaga dhacay tiin bar malaa'ig meel ku yaalana ma soo galehe shaytaan iyo malaa'ig kulan malaha waa dabiye dhagax weey markii la dhameeyo khaatum nabiga lagu dhuftay la nadiifiyay wixii laga saaray ayay labada meel waxay yiraahdeen haddu culus hada iimaan laga buuxshay balada aan miisaano hada la miisaama ya nabiga markoo la miisaami karo maxay yeelay nabiga markoo muxuu ahaa sida binaadan caada kal bashar xaqu shaydaanki baa ku jiray timbaran nabina kuma dhicin laba sifayn laba nadiifinin waa iska khafiif sida binaadan oo kala هذا لك هوش ولا دمي عمد ولا دماتي هذا وحال يزنه بعشرة من أمتي فوزنني فوزنتهم بالنبي كيف تبى ماشي لك يعني النبي قال الله صاري وحال يتبني المسلمين وأمتي سوا كلام بل كل ميزان ودك مكرر علمي قودي أقومت دي أود ذا نبي حلو طبعا كم الله كعي طبعا كأود بطي مركز يزنه ب100 من أمته بل بقول رجع ميزان لا صار كفدي كيلada inuu ay leekadaan iyo asoo ka xoog bato فوزنتم ايغنا hadana boqolkiiba nabigu ritibo qaatay ثم قال اجعلوا في كفة واجعل 1000 من امتي في كفة ملقى وحور بلوك هذا بقول والله قعميها بل كن رجعه اما كن امتي كميد واوين يا اسغو اسم ميزان كفدنا نبي صار كفدنا waxaa saartaa wali nabigu ma la soo waaniyar ma qujira 4 sano markuu 40 gaaray baa la diray waa la diyaarinaya wax walba layli buu leeyahay ritiga 12 jirka 3 jir buubaal soo maro la soo leeliyay oo si xarigii uu loogu waday iyo loo fiijinay marna birqalax loogu xidhaayay iyo saan jarca loo daba dhigay u biibay waagdan wuxuu noqday hayin buu noqonayaa caana madaadsana biyo madaadsana oo maqasha qaylada jabaqada aan dan kala hay nabi wuxuu markii kunkii la ii dhigay oo kunkii la ii saaray baan arkay kunkii korkayga maray aniguna aan hoos tagay yaani kunkii uu la kacay
فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم نبي حور حكى بقى من يقصوا ضاتان قيبة كمذا صار ولك عركاس بيتجي كد ملك يقول لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلق وتركاني كون مكان أن دوك دكتي يا واحد اسكدا كون كان أمدي صورن هدي كيف الله صاروا أصلا كيف الله صاروا وكحب بدنانية ويدجين وينقط تجين بول مركع يتجين الدمية عملية دي نقول ففرقت فرقا شديدا مركز النبي عبسكم بالله بنزا شغال ولا دمية هذا دون النبي مركع عبسده أبريشك دما خوش دماتي حلقة أيضا بركو حاول يعلكوا قلي عبسكوا ريبوي iyo indhoolo wuxuu gabada dharbaaxa kadib indhoolo dimaarka markay gacanta soo socoto markay ku dhacday kadib buu gabanaya lagu kala tag bawsha ayada marka nabigu hadda hawshii la dhameeyay cabsiisan dambe iyo argagaxan hadda waa argagax bashar bini aadam weey bini aadamku inay cabsadaan qofka dabiici ceeb ma aha qofka dabiiciga qof intii dhulka la dhigtay la jeexay wadniintii la soo bixiyay asagii la sii kala jeexay cad laga saaray la tuuray qayb kamid ah jirkiisii haddana biyo lagu shubay la nadiifiyay la tolay لقاتو الميزان تسيدي نف أريا ميزان أمده أودك كون بقول كفيري طبعا كفيري كده ممكن لقسم اللي أمده أدم بكحك بدن يا وأوكي هو شيء ناكل عبسبك وجليسة عبسبك وجليسة فأوجس في نفسه خيفة موسى إذن خوفك الطبيعي يا أسباب تسلع عيب معها خوفك مركا خوفك عبسده أي لارك أسباب الآن عبسنا بني آدم معها وحنوسية وأنا اسبتال لقيه isaga xanuunsan maxaa la isku dhaamaa ninna cabsidaas uu agaasimi hoodee raganimo iska daayday ninna waa fulay hadka geedo jeedi intaan bal qof aan cabsaynin ma jiro ninna cabsidu agaasima oo qabka loo agaasimo yaqaana ninna qaabka baasha loo farsamay ma yaqaano weysada ka jabi inta markii la sameeyay wuxuu nabigu wajaa al-ghilman كريدي أرجع إسلا راعينه ويلك والك يكجر أرده يسعون إلى أمه يعني ذئراه فقالوا إن محمدا قد قتل ويلش يشوقي نينكي ضدنا يسايد موين ويلش يركا كريدي أرجع لا تشوقي لأن أرجع ولا ضرعي ما قش ولا ضرع ذاي يا وحير كان النبي وأنت اللي جسوا بود ويلي رروك اللي قتل قالها هيو لا جش قيسان هيو إن من قاوين دول فرديار لبدا ملك مركور هذا هم بيكون مادني قرقر كدبنا وحسب الدين ضد بني آدم عادي إسكادجين نبي كشيكي عليه الصلاة والسلام ملائكة نوشة وأودا سيدنا بيكون سوى كيسينية شمبر بسكا كارديجيان بحال بسكا كارديج بني آدم بسكا كارديج سكا كيسين ملائكة الله وأودا ويلادا وكان نبي يقول من جري جبريل سوى إسكادجي نرميه وصداديه أي سفر كتار النبي ويقول marna wuu ku arkaa asagoo sidii rabbi u abuuray oo dhulka dhan baqariyo markuu duulay 600 garbaab ama baad ku xidhan yihiin markuu duulayna sadal ufuqa nabigu qoraxdii buu waayay markuu kacay duulay jibriil waa bariyadaan saxaab lagu maqari jibriil la gaad xaq waa bariya kaamara ma arkaysid oo sidiisa uu ku duulay sidii rabbi ku abuuray way qaylageeyeen wiilashii yarka xaliima loo tagay waxa la yiri wiilkii yarayd nuujinaysa qurashiga al-harami al-qurashi qad qutil waa la dilay wala ka farxash ma noolo حليمة مركز كشك يسويش وحيد جدي إذا أتانا أخوه يشتد مركز القوا حمو قنيس ويلك حتى عبد الله بن الحارثة إنه صلى الله بطي وصايدي كيني والنبي يقول ماشي يلا قالوا مركز لقيت جاي وأرجع سنويمي فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فضجعاه فشق بطنه فهما يصوتانه عيل ويلكي راي والك يا قرشيغا لبا نين با قبتay dhulkay dhigto laba nin dharcad qaba dhulkay dhigteen way jeexeen beerkiisii iyo ubucdiisii wax ka baarahayaan buur shaqayba ka wadaan waxay tiri xalan fa kharajtu ana wa abuhu nahwa wajnahu qa'iman muntaqan wajhuhu markan ani odaygii Abdul Uzza Xaarid Abdul Uzza oo nabiga daabi xagga nuugmada iyo hooyadii Xaliima birmaday oo ku orday nabiga Kaleey sallallahu alayhi wasallam markaasan helay tira asagoo bedelan midabkiisu bedelan yahay midabkiisu waa bedelan yahay hadda marka lagu abreeshimo hadda casid waa madoobaanays midabkooda isbedelaya jaalay bulug baad noqonays hawl culus baa gashay meesha bini aadam laga qalo meesha oo adag baa nabiga laga qalay ma tamsama oo wadnaha
طيب مركب فوجدناهم منتقعا وجه سبدلين هاي بان لك ولنا يؤاد والبهرسنا مع عبسانية فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا ما لك يا بني أبيه بقى اسكت دوبي أنا وروا اسكت دوبي كده وحنا ويلك النبي ومحاكوا علي ويوعب صدين آد ويجعل عليه ويكجع كذا لا ويكجع عليه أبو طالب عرورتي النبي وكجع على عبد المطلب وحررنا سو كجع على سو ير بابو عبد المطلب وحلو دغ جيري غوغل يا كعبدا هوس غلبيد كذا لو دغ جيرين لما كوي كوليد wiilasho dhalodhan marka hareer ay fadhiisan jireen lama ogolayn odayga Cabdi Mutalib gogoyshiisa in lagu fadhiisto ahad ku fadhiisan jiray intuu soo socdo la fadhiisto uu daayo nabiga ka jiray isagoo yar buu iman jiray koreeda kale ugu yodhan uu fiijin jiray wareey ka gudu gogosh xaq ku tuuraya laakiin agoonka wiilkiisu dhalay ma ogolayn la taabto asagoo hayn jiray marka la maxad ugu dhagan tahay daayo oran jiray wiilkii warba ka soo socday wuu arkay wiilkii warba ka soo socday wiilashin la mid mee faraha ka qaada Cabdul Muttalib wad garanaysaa soo nabiga sidii jirna waa ka dhinto